madaxweynaha deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar oo wareysi siiyay telefishinka OBN ayaa u dhacay sida tan. Thank you so much for making the time to talk to OBN. aad baa kaga mahad celinayaa inaad la hadasho telefishinka OBN. Thank you so much Mohammed and welcome Jigjiga. aad baa u mahadsan tahay Maxamed kuna soo dhawow Jigjiga. Could you tell us a little bit about what it took to get here? wax ma noo sheegi kartaa sababta lahayd inaad madaxweyne noqoto? Yes, I'm also equally surprised as you are that I'm here. It was not my dream to become a president or to lead this region. As far back as like 6 months ago, if you would have asked me, where will you be? I would probably have told you I will be in one of these other countries as a aid worker. Ha, aniguba sida aad u yaaban tahay si lamid ayaan ahay inaan halkan joogo mana ahayn riyadayda inaan noqdo madaxweynaha deegaankan ku dhawaad 6 bilood ka hor haddaad i weydiin lahayd maxaad noqon lahayd waxaan kuu sheegi lahaa inaan ahaan lahaa mid ka mid ah shaqaalaha gargaarka bilaadantinimada ee wadamada kale taas oo ahayd shaqadayda aadna aan ugu qanacsanaa waxaan naftayda u arkaa qof aan u heelanayn inuu noqdo u ololeeyo bulsho ama activisti balse xaaladda ayaa igu qasabtay inaan noqdo qof u hadla arrimaha bulshada ama activisti mana ahayn mid aan xirfad ahaan u raadsaday niyadeedana maanan gashanin inaan noqdo activisti sidaad la socoto taariikhda deegaankan iyo dalka intiisa badanba 30 sano ee u dambeeyay waxa ka dhacday dawlad xumo waxaana lagu tuntay xuquuqda aadamaha maamul xumaduna waxay ahayd dhaqan maalin walba ah taas ayaa sababtay fikirkayga inaan u hadlo shacabka oo aan ka hadlo xuquuqda aadamaha xorriyadda una hadlo dadkaan lahayn cod iyo cid u hadasho toona waxaan ka hadli jiray cadaalad darrada iyo maamul xumadii jirtay ee deegaanka iyo tacadiyadii dhici jiray waxaan u hadli jiray in shacabku ay helaan xorriyad iyo cadaalad lana dhowro xuquuqda aadamaha waxaan bilaabay qoraa bilowgii markaan jaamacadda ku jiray iyo markaan ardayga ahaaba waxyaabaha kaftanka iyo arrimaha bulshada waxaan arrintaasi igu sii dhiirigelisay markii aan arkay maamul xumada iyo tacadiyada bilaadanka dhanka ah inaan wax badan ka hadlo maamul xumada iyo siyaasadii guracneyd ee deegaanka iyo dalka taas ayaana sababtay inaan noqdo qof u hadla ama u ololeeya arrimaha bulshada arrintaas ayaa sababtay inaan maanta halkan imaado la yaabna ah balse waxaan doonayaa si ka go'naansho leh inaan wax weyn bedelo Bit committed to make a difference now that I'm here.